fiiri wasaaradii jooga xildhibaan wasiir waay wasaaradda arrimaha gudaha meesha lagu dhisay dadka dhisaayo intuu hal maalin hata istaagay walaalayaalow deegaankaas waa deganahay xaqaasan ku leenahay inta ku leenahay looga leeyahay hadda lagama hayo marka ma shaqo xumaad ku eedeynaysan mise maroorsiga sinaanti cidii uu matalayay oo ku matalayay maamulka ama dawlad goboleedka waxa la yiraahdaa waa Iman Ali Cabdi Iman Goobe wasaaradda tamarta iyo biyaha beelaha Soomaaliyeed ama reeraha Soomaaliyeed waxay leeyihiin hogaano afhayeeno iyo dad isku xiran oo loo mara hadii ay tahay barnaamij siyaasadeed wallahi wasiirka la fadhiis ila wada hadal uma yaro dhowr jeer la hadlay waliba xaalad hada waxay taagan tahay waa dadkii asaga matalay dawladda inay isku dhaxaan mar dambe ka soo hormuuqneen oo ka leexdo waxa kamid ah qodobada uu jeedinayo wasiirka Xasanow in Ilaahay ka cabsado number 1 kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka naga daawanaysaan waa Danan TV maanta waxaan wareysan doonaa mid ka mid ah dhalinyarada aqoon-yahanada ay ka soo jeeda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya aqoon-yahanku waxaynu weydiin doonaa su'aalo ku saabsan xaaladda guud ee maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba waxyaabaha uu doonayo inuu ka hadlo isagoo tilmaamay inay jiraan dhaliilo uu u jeedinayo qaar ka mid ah mas'uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed marka barnaamijka waxaan ku soo dhaweynayaa aqoon-yahan Isaaq Ibraahim Aadan oo ka mid ah bahda aqoon-yahanada ahna wiil dhalinyaro Isaaq soo dhawow warbaahintan ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدين صلى الله عليه وسلم aad u maasantahay waa dhowahay cali saaxiibkay waa dhowahay aad baan ugu faraxsanahay inaad barnaamijka nagala qayb gasho marka la soo dhawow maanta warbaahinta Danan ayaad ugu soo booqatay barnaamijyo badan baad rabtaa inaad ka hadasho haddii barnaamijka aad noo soo booqatay intaan ku weydiin bal xaaladaha Koonfur Galbeed haddii si guud aad noogu kormarto والله وما سنتهاي حسنو هرتو كونفور قلبيت قفل بأوجه وحالده واسك دجنتهاي ما دام دبعتوين بدنا اسك شرين أو بريء دمبه مقالة بدو كله ومعلومة هراء مرة حالده اسكير حماتي لكن هذا واحد دبعه كم تاجن وعبارة وحيابي يرو اسك عادي أو اسك شروي شران لكن وهذا واحد أو جرهان دجانة ذكلا دلك يوجدون تهاي وعقبت كونه هاد كشرتو ملهن dhalinyarada ka soo jeeda Koonfur Galbeed ka mid tahay gaar ahaan kuwa aqoon-yahanada aad kan u daayar marka wasiir ka mid wasaaradaha maamulka ayaa eedeyn u jeedinaysa waa wasiirkee wallahi waa Xasanow waa mahadsantahay waxaan rabaa horta caqabado fara badan iska jiro dhanka maaragta oo maamulka oo hoose marka waxaan rabaa gaar ahaan wasiirka aan rabo inaan ka hadlo waxyaabaha oo bulshada oo matalo meesha ku hayo waxa la yiraahdaa waa Iman Ali Cabdi Iman Goobe wasaaradda marka ka wato wasaaradda tamarta iyo biyaha marka maxaa dhib u jiro oo marka oo wasiirka eedeynta u jeedinayso iyo tabashada maxay Xasanow waa horta wasiir marka la yiraahdo waa umad dhan oo matala dawladda u shaqeeya waa shakhsi dadka dhan oo matala waaye gaar ahaan dadka ka soo jeeda oo ka dhashtay oo inta badan dadka kale oo ugu mudan oo ugu dhow marka waxyaabaha aan ku haysano waxa ka mid ah wasiirkeena wasiir Goobe heshe iyo musuqmaasuq fara badan oo wasaaraddiisa ka jirto iyo takrifal oo dhanka ma aragtaa oo qaabka wasaaradda u shaqeyso iyo dadkii ma aragtaa wasaaraddaasi oo inta badan oo shaqaaleysiintooda iyo waxyaabahaas ka jiro oo aad noo duray oo aad u dul qaadan waynay wasaaradda ka jiro waxyaabahaas aan rabaa marka inaan wasiirka ma aragtaa oo waxyaaba igu kiciyo inaan wasiirka aan taargeysado waxyaabahaas ka mid ah marka si shakhsiyana miyaad u eedeynaysaa mise si dan guud wallahi horta waa hadda wax gooni ah oo aan had ii geystay oo dhibaato oo aan hadda ka cabanayo oo ninkaas dhibkaas ugu sameeyay aan dhahayo ma jirto laakiin waa xaalad guud waaye tusaale wasiirka markuu meesha joogo dad oo matala oo reer oo ka dhashtay marka waxaa jirto dhibaatooyin ah shaqooyinkii oo ma aragta wasaaradda iyo waxyaabihii dadka oo ka dhashay xuquuqda lahaa oo si oo ma aragta qaldan loo isticmaalay meel gooni ah loo leexiyay oo dadkii xaq u lahaa inta badan ama wasaaraddaasi dadkii oo isaga meesha ku matalayay in hal beel oo kale waxyaabihii oo hal meel ku shubo waxaa kaloo jirto wasiirka aan ku haysanaa waa waxyaabaha deegaankii oo laga soo doortay degmadiisa caqabadaha ka jiro nin weligiis oo ka hadlay ma ahan
dhib kastoo ka dhaco amase waxyaabo kastoo jiro wanan iska handhatiraayo oo shaqadiisa ahayn. marka ma shaqo xumaad ku eedeynaysaan mise maroorsiga sinaanti ciddii uu matalayay oo ku matalayay maamulka ama dowlad goboleedka mise wax qabad la'aan waxyaabaha aad hadda adigu dhalish ugu jiidanayso marka ma wax qabad la'aan baa ma in uu wax masmaasuqaya marka si dadka nadaawana u fahmaan si ay u fahmaan dadka marka aniga gudaha u galo ninka wasiir goobe waxaan ku haysanaa wasaaradda oo joogo shaqaalaha meesha ka shaqeyso waa 99% waa reerka girb ahaan oo ka dhashtay waay